السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد الله آدن شاق علي caawa waxaan isku dayaynaa barnaamijkeenii labaad ee dhiirigelitaanka inaan nii soo gudbino dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda afkayga fahmaysay soomaalida. Caawa maxaan soo gudbinaynaa ama maxaan ila wadaagaynaa waa saddex camal oo kale oo aada iyo aada u qaaliya oo aada iyo aada noogu u muhiima qof kastoo muslima ama qof kastoo islaama kuna fudeydinaya martabada iyo sharafta adduunyada aada doonaysa inaad ka gaadhid iyo aakhirada. saddexdan camal haddaad samayn weydid amba aada sheegi weydid amba aad ka dheeraatid waxaa noqonaysaa qof agta ilaahay iyo agta ummadda auna nool yahay laga ciseeyo amba karaamad ku leh. sababtoo ah saddexduba uma fiicno qofka shakhsiyan ama nafsiyan ina au sameeyo ama ina au ku dhaqmo. waa maxay saddexdan camal intaa leeg oo ilaahayna nagu jeclaanayo in adduunyadii iyo aakhiradiina aan ku badbaadayno aan hadafyadii aan nolosha ka rabnayna aan ku helayno. waxa weeyaan kow shayga u horeeya waa beenta, shayga labaadna waa bakhaylnimada, shayga saddexaadna waa baahida badan amba sida loo yaqaano qof baryo badan. beentu islaam ahaan ama muslim ahaan waaba shayga naga xaaraana oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xadiis waa kii ku lahaa ummadeeda qof hadduu been sheego ummadeeda ka mid maha. xaggaas xadiiskaa waxaan ka qaadanaynaa qof kasto marka uu been sheego ama hadduu been sheego waa shay aada iyo aada noogu diiday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam. soomaalidu qudhadeeda way ku maamahdo waxa ay tiri beentaada hore waxa ay dishaa runtaada dambe. markaa beentu wax la jeclaysan karo maaha. marka qof kasta hadduu au iska ilaaliyo beentaas waxa uu rabo uu gaarayaa. shayga labaad uu qofku uu iska ilaalinayo amba au noqonayn amba au sameynayn waa maxay amba au isku dayanba inuu noqdo waa bakhaylnimada. dadka inta badan marka la yidhahdo bakhaylnimo waxaa maskaxdooda kusoo dhacda in lacagta shayga quraata bakhaylnimo ka noqon kartid lacagta maha. waxaa kamid a inaad bakhayl aad ka noqotid inuu cilmigu ilaahay ku siiyey badan aad wax ka bixin weyda aad dadka ugu dhigi weyda amba awood badan oo xadaaf uu ilaahay ku siiyey amba karti badan oo ilaahay ku siiyey amba fikrado badan oo dadka aad kaga saraysid inaad dadka aada waxba ugu qaban weydid amba ugu sheegin weydidna waa bakhaylnimada qayb kamid a oo lacagtan quraata bakhaylna maaha. qaybta saddexaad waa baahida amba baryada saan u naqaano inaad qof baahi badan noqotid amba baryo badan ood had iyo jeer dadka aada hoos joogtid ood wax weydiisatid hadday lacag noqoto hadday wax noqoto. marmarka qaarkood dadku ku karhaan oo telefoonka uu soo dhaco ama meel laga arko la oranayo waatan heblaayo amba waa kan hebel waxaabuna weydiisanaya xagga naga qariya. laakiin waxaa ka qurux badan inaad noqon qof baahi badan. haddaad baahi rabtid waxaa loo sheegtaa ilaahay subxaana watacaala baahidada adduunyada iyo ta aakhirada waxaa gudi kara oo ku faraxsan inaad baridid ilaahay weyn oo kuleeyahay aniga i bari anaa wax aad rabtid ku siinaya. saddexda haddaad iska ilaalino beenaale haddaad noqon bakhayl haddaad noqon baahida haddaad yeelan oo dadka inta badan aad bariyin waxay kuu fududeynaysaa waxaad nolosha adduunyada ka rabtid oonad ku gaadhid nolosha aakhiradii abadiga ee la rabo. marka qof kasta hooyo hadday tahay wiil hadduu yahay aabba hadduu yahay hadduu u yahay macalin hadduu yahay madaxweyne waxaa qofka laga rabaa islaamka ee muslimka inuu iska ilaaliyo saddexdaas. waxayna u fudeedinaysaa waxa uu adduunyada ka rabo iyo waxa uu aakhirada ka rabo. sharaftiisaana ku xidhan inuu qofku is ilaaliyo iyo cirdigiisa. marka haddaan islaam nahay aada iyo aada inaan saddexdaas kaga ilaalino ayaa noo fiican.